magaca Soomaaliyey sayda sharcigiye sidan laguma faleen inan haddaad sunnaha raacdaane sunnihiyo kitaabkii allaad sayma ka dhigteene. bismillahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacayga waa ismaaciil muuse halkaad iga daawanaysaan waa bartaan ku leeyahay mareegta youtube ee ismaaciil seed. fadlan dad ku cusub tahay channelka kusoo dhawow, subscribe tana saar, videogana like gare, gambaleelkana u furo oo horu ka xeeyada arooriya channelka arooriya xoogay qabadsiiyo darka. maanta halkan waxaan ku duubi doonaa videos xoogay dhowr ah oo kala dambeeya. kii koowaad oo maanta halkan lagu duubi doonaa videoska aan duubi doonaa muuqaaladana waxaan ugu magac daray videoska noqon doona dad badan sunta ka ilmaysiisa, qaar kalena u noqon doona madowga nuur ay kaga baxaan, iftiin ay madowga iyo waxa ku xayndaamin iyo qafladaha haysta ay kaga baxaan oo ay ku socdaan. labada qaybood u kala noqon doona dadka ayaan ku duubi doonaa. ka koowaad ayaan duubi doonaa maanta, kuwa kalena ciwaanada ama teetalada guud ay leeyihiin dhowr ka mid ah ayaa idinla sii wadaagaya. waxaan ugu horeeya oo maanta aynu duubi doonaa arrimo ayaamahan dambe ka qaylisiiyey bulshada, khaasatan baraha bulshada meelaha la yidhaahdo social media loo yaqaano, aada looga hadalhayey arrimaha oo kala duwanaa oo dhowr qaybood ahaa oo qaybo ka mid ah ay kasoo yeedheen dad muslim ah, khaasatan weliba Soomaali ah, qaar kalena dad kale iyo qaadiyo laftigoodu muslim sheeganaya laakiin lahjado kale ku hadlayaana ay jireen. arrimaha oo guguc iyo onkod iyo gariir iyo guux ka dhalisay baraha bulshada dhexdooda ayaan maanta ka hadli doonaa. waxaa kaloo ka mid noqon doona halkee ayay dhigtay diinteena macaan ee sharafta lehi dumarka muslimka ah. dumarka muslimka diinta halkay kaga jiraan, booskee halkay ka taagan. waxaa kaloo ka mid noqon doona maxaa diinta iyo xukunka loo kala saaraya. dadka qaar maxay u aaminsan yihiin in diinta iyo xukunka dowladda la kala saaro, maxaa laakiin ka dhalan karaa. waxayuna sidoo kale ka mid noqon doona diinta iyo dadka maxaa la iskugu dirayaa. had iyo jeeraale waxaan aragnaa iyadoo dad badani diinta cadaawad ay u qaadeen, aad moodid in lagu diray diinta oo laga soo horjeediyey. waxaa iyadoo dee sidoo kale ku jirta oon meesha ka dhinayn iidaankii kalaamka, iidaankii hadalka, suugaanta dee koosaartii iyo iidaankii hadalka ayaan iyagoon meesha ka dhinayn. waxaana ka mid ah oo insha allah ku jiri doona magaca Soomaaliyey sayda sharcigiye sidan laguma faleen inan haddaad sunnaha raacdaane sunnihiyo kitaabkii allaad sayma ka dhigteene. xadkaasinaad ka diidaysaan sidiisani sugadheede, saan qaroorkaad ka qaabsateen subanow muxamede, sharcigii lala soo diraad ka sacab tagteene. waa sabi la haqiyey hagaasayoo suudhay, saableyda hoosiyo sanbabado caddaadeen, maxaa lagu sirayaa maxaa lagu sasabayaa, surun suura iyo sakal sere aanu filanayn, salka loogu dhigaye sinta loogu musbaaray. maxaa hooyo sahwiday selashay saqdii dhexe, ilmadeedu sarabkiyo suuqda hibiq leedahay. intaa kadacdi waxaynu bilaaban doonaa videogeena ugu horeeya oo aynu kaga hadli doono arrinka aynu sheegnay markii horeysay. ayaamahan dambe balaha bulshada aada uga qaylisiiyey bulshada meel kastay joogaanba, khaasatan social mediaha. arrimaha waxaa ka mid ah oo jira oo nagu soo kordhay oo meel hore meelaha kale ka jiri jiray iyo dadka cawaanta ah ee xoolaha ka liita, laakiin beryahan dambe aad moodo inay dadka muslimka ah kusoo biirayaan, kusoo kordhayaan, kusoo siyaadayaan, khaasatan dadka maxay ahayd toley Soomaaliyeed meel kastay joogaan ay aada u hadal hayaan dhowr arrimood oo isku yara dhodhow. arrimaha oo ay tii u dambeysay ayaan dhowto maxay ahayd ku dhawaaqday ama ay tidhiba ama ay ka soo baxay afkeeda inan walaasheen ah Soomaaliyeed intaan ku ognahay annagu muslim ah, oo ay ahayd waxa loo yaqaano kufsiga. ay inantaasi ku tacriifisay ama ay tidhi kufsigu waxa weeyaan waxaa ka mid noqon karaa haddii nin iyo gabadh isqaba oo xaasiska ah oo gurigoodii tegey oo sariirtoodii maxay ahayd ku caweynaya isyara fahmi waayo xoogay oo dabeeto si qalafsan ay isugu yara tagaan. arrinkaasi kufsi ayuu noqon doonaa oo kufsi ayuu noqonayaa. xukunkii kufsigana wuu yeelanayaa, wixii la marin jirayna waa la marinaya. arrinkaa ayaynu maanta ka hadli doonaa. waxaa kaloo arrinkaas hoos gelaya oo yar ka horba laga dhawaajiyey ama dadka qaar ay caddaysteen muujisteenba in laba nin ama laba nin oo isku jinsi ahi ay wax iska digi karaan ama isku hamoon karaan ama isku galmoon karaanba iyagoo isweydweydaaranaya.
sidoo kale inay laba dumar iyaguna sidaas oo kale isku hamoon karaan isku galmoon karaan anu dee garan maayo malaa ismasmasaxayaani arrimaha ayaynu bal maanta ka hadli doonaa tan aynugu soo horraysiinoo ah kufsiga walaashin waxay tihi laba qof oo dumar rag nin iyo gabadh isqabaa haddii ay si qalafsan isugu tagaan oo aan raalli ahayn ku jirin waxay noqonaysaa arrinkaasi kufsi videogankii ka horreeyey su-aalo ayaan ku weydiiyaan ku inta walaashiina anigoo sharafteedana meel kaga dhici haynin qadfina haynin maxaa u taqaanaa siino marka koowaad marka labaadna kufsi maxaad u taqaanaa siinadu waxa weeyaan laba qof oo meher aan isku qabsan meher isku haynin lisku meherinin oo dabeeto isku galmooda isku hamooda iyagoo iska raaliya midba midka kale raali ka yahay taagbaas mala raaxay ka deeyeen dee kaasaa dee siina la yidhahdaa xukunkeedana ilaahay ayaa inoo sheegay qof kalena looga daba fadhiisan maayo waxay leedahay iyo waxa ka dhalanayaba waa lainoo tacriifiyey arrinka kale ee ah kufsiga dee horta luqad soomaaliyeed baynu ku hadlaynaa kelmaddanina waa kelmad soomaaliya kelmad qumuud iyo qarsoodi ku jirto oo adagna maaha waa kelmad ka mid a kelmadaha fasiixa ah ee afka soomaaliga oo dee kufsi baa la yidhi kufsiguna waxa weeyaan sinadii oo labada qof isku tagaan iyadoo aanay gabadhu raalli ahayn waa sinadii aynu soo tacriifinay imanka labada qof inay isku tagaan iyadaan gabadhu raalli ka ahayn in la juujuubo oo xoog wax lagaga qaado taa ayaa kufsi la yidhaahdaa haddii aynu nidhaahno nin iyo gabadh isqaba oo sariirtoodii tegey ayaa si qalafsan iskugu tegey kufsi bay noqonaysaa waxay noqonaysaa labadaa qof sino ayay sameeyeen dee nin iyo gabadh isqaba oo meher ku dhacay oo meel mahwiye laisku siiyey isku tagay isku tegeen haddaynu nidhahno sinuu noqonayaan goorma ayay waayeen wax kale dhalanayaan oo dee guurku guur noqonaya waayey markay taasi noqoto sino kufsigu waa sinadii oo halkay labada qof raalli iska ahaayeen imanka kiyo ninku xoog wax ku doonaya gabadhana ay ka cararayso uu sidaa ugu tago xukunkeeduna ilaahay ayaa inoo sheegay oo cidna looga daba fadhiisan maayo ciqaabta ay leedahay waxaan leeyahay walaashayna ugu dambeysay ee ayaamaha dambe aad loo hadal hayey anigoo aan sharafteeda iyo cizigeeda meelna kaga dhici haynin inta aan ogahay ama aan ogsoonahay qof muslim oo soomaaliyeed baan ku ogahay diin kale iyadoo dee wadana ma arag iyadoo ku faanayso dee diin kale aan haystaana ma arag dee qof soomaaliyeed baan u arkaa qof soomaaliye qof muslim baan u arkaa soomaaliyeed weliba dee sharaftiisana in meel lagaga dhaca maaha iyadoo bini aadam marka horeba ilaahay uu karaameeyey wuxuu maan leeyahay walaalmalaha si khaldan ayaad arrinkan u fahantay ama si khaldan ayaa lagu soo fahansiiyey bal dub ugu noqo waxaan arkayay iyada oo fiidiyoyo dambe soo duubaysa oo bedeshay mawduucii waxaan leeyahay fadxiyo cabsiyay waxay baad u bedeshay mawduuca markii hore ka hadlaysay haddii aad ogaatay inaad khaldan tahay maxaad u bedeli odhan weyday raaliha layga ahaada raalgelin uga bixin weyday ilahana ugu toobad celin weyday adiga oo meelo kale qabtay ayaan arkayay oo jawaabo kale bixiyey oo ooyayo ilmeynaya oo waxyaabaana waan kula dareemi karno xaggooda kasoo wareegay marka tan lagugu qabsaday ee tan aad aragtay in arrin khaldan aad dhex fadhido diintii faraha la gashay maxay baad odhan weyday waa arrinkaa waa ku khaldamay raaliha laga ahaado ilahna ugu toobad celin weyday wixii kale markaad ka hadlaysay dhibaato kuu muuqataa aad u gudbin weyday raggu waa kuwa dumarka furay ee marka dambe caruurahoodii intay qubeen dumarkii caruur isku qubay ee dumarkii iyo caruurtii balaqsanayeen suuqa hooyadu adeegaysa caruurtii iyagoo agoon muddo agoon aan ahayn ayaa tidhi raggu wayna ciileen baad tidhi oo waa kuwana agoomeeyey oo waa kuwana furay oo waa kuwana belanbeliyey oo waa kuwa isdile ee maxay qaxa iyo balanbalka nugu wacan intaba waynu kula dareemayna inay jirto oo dhaliilo ay tahay in la toosiyo iyo qalad maxaad xaggaa ugu weecatay markii aad marka hore adigi lahaa nin iyo gabadh isqaba markay isku tagaan waa zino waana xukunkeedii laga dhaliyo waa kufsi kufsiguna de waa zino zinada markaa dee xukun meeleed xukunka laga dhaliyo oo ninkan hala ciqaabo dee gabadhana markaa ma qabe ee way ka furantay banaanka ka marto arrinkaaga maxaad daliiladaada iyo faahfaahinteeda caddeynteeda aad ugu keeni weyda xaggaa ugu sii socon weyda aad uga leexatay tan kale waynu kula dareemayna midda labaad waxaad tidhi cid kama hadasho kufsiga iyo dumarka la dhibaateynayo caruuraha la farax xumaynayo caruurta kufsi ma odhan karno ee waa la farax xumaynaya waxaa tidhi caruuraha la farax xumaynayo kama hadlaan raggu khaasatan waa tidhi wadaadahan marka lasoo hadal qaado xuquuqda dumarka mikrofoonada soo qaadanaya ee buuqa samaynaya kama hadlaan baa tidhi waanu ka hadalnay anagoo shaarkii culimo xidhan baanu ka hadalnay anagoo shaarkii abwaaninta xidhan baanu ka hadalnay anagoo shaarkii sacabka xidhan baanu ka hadalnay anagoo arday baanu ka hadalnay inta baanu ka wada hadalnay waana laga hadlaa wixii xumaan iyo khalkhal iyo fasaad ah bulshada ku dhex jira 4 saacadood waanu ka hadalnaa waanaanu jecelahay inaanu ka zuulino oo wixii dhaqan aan u soo gaarnay dhaqan xumo ah dhaqanku wax wanaagsan uu leeyahay wuxuuna uu leeyahay inta xun inaanu ka saarno har iyo habeen anaga u heegan oo geed dheer iyo geedka u fuulay wixii nagu soo diriyay ee dhaqankeena iyo diinteena wanaagsan oo khilaafsan anaga ayaa u heegan oo tix iyo tiraaba
kaga jawaabayna kagana celinayna kagana hortaagan arrinkaasina dee arrin lagu wada qaado dadka maaha hadday ku yara muuqdeen meelaha qaar inay laga yara gaabiyey inaad dadka isku wada qaado maaha waxaanan barnaamijkeennan kusoo gebagabaynaya wixii bulshada ku dhex jira ee dhaliila ah ee xumaana ee dhaqan xun ah waa in laga suuliyo waa inayna u wada soconnaa garab iyo gaashaana waan isku siinaynaa inaan xumaanta ka saarno wixii diinteenna iyo dalkeenna iyo dadkeenna waxyeelaya waynu ka saaraynaa meesha oo waynu u dagaalamaynaa oo hor iyo habeen waynu usoo jeedaynaa diinteenna macaan in la qadfo oo la farafareeyo oo wax laga sheegano waynu ka dagaalamaynaa ciddii diinta faragelisa ee wax ka sheegta ay siday tahay saan ahayn wax uga sheega wax daran baa ka raaci doona barnaamijyada inoo soo socda faraha badan le inoo taxano waan kaga hadli doonaa waan la wadaagi doonaa bulshada iyo baraha bulshada iyo mujtamaca dhexdiisaba in cid kastoo u heeganano waanu la garab joognaa in xumaanta iyo tacadiga iyo fasaadka laga qabto ummadda laakiin iyada oo la leeyahay maxay ahayd toole xumaan baan suulinaynaa tacadi baan ummadda ka saaraynaa dhaqan xumo ayaanu ka saaraynaa wax soo jireen ahaa fool xumaa ayaanu ummadda ka dhex baabiinaynaa in diintooda la qadfa maaha dadka sharafta leh ee diinta xambaarsan markaad qadfayso wax ka sheegayso dhaliilayso qofkan dhaliilimaysi shakhsiyadiisa ee waxaad dhaliilaysaa waxa weeyaan diintii wanaagsanayd diinta dad dhaliishano dee nebigii loo soo dhiibay iyo maxay ahayd toole malagii loo soo dhiibay ilaahay soo dejiyey intaba waxay noqonaysaa inaad dembi ka gashay qof kasta oo diinta farafareeya meel kasta uu joogaba cashirkeena maanta wuxuu kusoo koobnaan doonaa intaa wixii ka dambeeyana duruusta dambe aynu ku qaadan doonaa iyagoo kooban oo haddana faahfaahsan oo haddana aan isku dhex jirin ee kala saafan hadal iyo hilbaba kala saafan ayaa hore loo yidhi asalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.